بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة الله تبارك وتعالى أيام هذا السكالة إن السيئي جانس كان حجكو أحكامتيسا هلغا هالله هدي ليلة هذو آد بيو بدن تهي wax fadhi iyo laba fadhi lagu soo koobi karana ma aha Allahumma inaan si gaaban u tilmaano waana mid aan ku qasbanaan doono insha Allah taala waqtiga oo yar darsi waxa uu horeeya oo jeclaa inaan tilmaamo waxa weeye xajku waa cibaado aad u qiimo badan ajirkeeda iyo fadligeedana aan u malaynayo in aad la idinku sharxay laakiin meeshaas waxa u baahan qodob baa u baahan in lagu baraarugo qodobkaasi wuxuu yahay fadliga xajka lagu sheegay iyo khayrka faraha badan marka aad ka helayso waa markaad u gudato fariidadaas sidii Allah u amray tabaaraka wa taala hadii aadan u gudanin sidii loogu talagalay xajkaagu kii ajirka laga heli lahaa ma kii fadliga faraha badan lagu sheegayna ma aha bal waxa laga yaabaa inaad la soo noqoto wax la'aan iyo khasaare la soo noqoto waana takeentay nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu xajkiisii xajjatul wadaac oo ku dul xajiyo acmaasha dhamaanteed ku guto ama badankeed isagoo hasha korkeeda saaran si ay dadku u wada arkaan leena dadka aad u badnaa si marka loo fiirsado oo looga qaato xajka iyo qaabkii loo gudan lahaa looga barto buu nabiga sallallahu alayhi wasallam hasha korkeeda acmaasha ku sameeyay isagoo saaran buu acmaasha gutay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi maalintii tobnaad khudbadu jeediyay waxaa kamid ahaa inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam khudhu anni manasikakum iga qaata manasiktiina iga barta waxa dhici karta inaanan sanadkan kadib soo xajiin nabiyullaahi ibraahim alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam iyo nabi ismaaciil alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam markay kacbada dhisayeen waxyaalaha ilaahay weydiistaan waxaa kamida wa arina manasikana ilaahu manaasigtanada natus oo nabar macnaheedu waxa weeye meesha waxaa ka muuqda hadduu ruuxu isagoon shaygii baranin oon dhagaysanin oo weydiinin oon iska hubinin waan xajinayaa yidhaahdo ama waan cumraysanayaa yidhaahdo waxay u badan tahay inuu wax la'aan soo noqdo kaliya inuu tacab khasaaro dhibaatoodo kharash ka baxo taasi waxay adkeynaysaa marka inaad ku dadaasho inaad mar walba amalkaad sameynayso iska hubiso qaabkii loo sameyn lahaa xajku marka waa fariido kamida arkaanta waaweyn waana tiirka shanaad ee islaamnimadu ku taagan tahay waana la isku waafaqsan yahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam fi sahihayn wa fi ghayri ma tilmaamaya aayadda quraankaana rabbi wuxuu ku yiri tabaaraka wa taala ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله dadka korkooda wuxuu ku leeyahay xaj inay beedkiisa tagaan oo soo siyaartaan dadkoo dhan hadana kuma leeyahay wuxuu ku leeyahay cidii kari karta jid ahaan oo jidka awoodi karta rag iyo dumar midku dooniha ahaado fariidadaas ahkaam fara badan oo ka horeysa jirta laakiin maadaama waqtigu ugu yar yahay waxaan rabaa insha Allah taala inaan ahkaamta muhiimka ah markii amalka la dhex galo oo ruuxu sameeyo ku saabsan taasaan jeclaa insha Allah taala inaan xoog saaro ruuxu markuu go'aansado inuu xaj ama umra aado waxa loo baahan yahay
inuu qabaysto waase markuu xarmanayo xidhanayo waa u tegi doonaa xataa haweeney caado qabtaba ha noqoto laakiin waxaan mari doonaa aan tilmaami doonaa hadda qaabka innaga oo kale iyo dadkayna la midka oo diyaaradaha ku tegaya marka la xarmanayo jaanisay ku qabaystaan ma hayaan oo marka la xidhanayo ilaana diyaaradda korkeeda la saaran yahay sidaas daraaddeed qabayskaasi waa meesha waa ka baxaya leanna sunnuu ahaa duruuftuna ma saamaxayso marka muxuu ahaayey qodobka labaadi waxa weeye ruuxu wuxuu xidhanayaa hadduu rag yahay dhar cawradiisa asturaya oo aan ahayn dharka lagu tolay jidhka loo tolay ee xibnihiisa loo tolay waana dharka ay culimmadu u yaqaanaan almakhiid dharkaasoo dhan buu iska dhigayaa hadduu qamiis yahay hadduu shaati yahay hadduu sarwaal yahay markaa wuxuu ku bedelanayaa labadii go' ayuu xidhanayaa labada go' ama ha caddaadeen waa sida fadliga badan ama midab kale ha yeesheen inay caddaadaan sharti maaha kabaha xaggooda sidoo kale wuxuu xidhanayaa kabo aan aanqowgiisa daboolaynin ama dacas ha noqdeen ama sandal ha noqdeen ama faraha hore iyo ha qariyeen laakiin waa inay ka hooseeyaan aanqowga mar haddaysan aanqowga qarinaynin kabahaasi waa la xidhan karaa ayib sidoo kaleeta wuxuu iska bixinayaa ninku wax kastoo madaxiisa daboola koofiyadda iyo cimaamadda iyo waxyaalaha madaxa lagu asturo ayuu iska bixinayaa markuu doonayo inuu xarmado haweenaydu iyadu dharkeeda ay xidhan tahay ay ku asturan tahay iyo xijaabkeeda wax ka mida iska bixin mayso sideedaas ayay xajka ku xidhan ama cumrada ku xidhan allaahumma haddii ay indhashareer qabto waxay siibaysaa indhashareerkana waxaa la yidhaahdaa aan haweenayda xarman loo ogolayn midka ku dheggan wejiga ama wejigoo dhan ha ku dheganaado ama indhuhu ha soo jeedeen marba hadduu wejiga ku dheggan yahay waa indhashareer kaasaan la ogolayn laakiin waxaa loo ogol yahay inay mara soo dayso intay madaxa ama fooda kore ka soo dayso ay markaasi wejiga korkiisa ku sii dayso iyadoo maradaasi ayna ku dheganayn wejiga waxaa kaloo haweenayda ay iska bixinaysaa hadday qabto sidoo kale waxa loo yaqaano glofiska gacmaha la gashada iyagana lagu qariyo ayadana way iska bixinaysaa innaga meeshan markaan joogno wuxuu samaynayaa ruuxa doonaya inuu xajiyo ama uu cumraysto dharkiisa aan hadda soo sheegnay oo labadii go' ah ayuu meeshan isagoo jooga wuu qabaysan wuu isnadiifin isagoo meeshan jooga waa sida u roon oo u sahlan ayaad labada go' xidhanaysa waana sidii nebigu sameeyey sal lla alay wasalam nebigu intuusan miiqaadka laga xarmanayo soo gaadhin ayuu labada go' soo xidhay magaalada madiine markuu ka soo ambabaxayay labada go' wuu xidhnaa marka sunnadu siday tahay dadkana u fudud waxa weeye diyaaraddaba markaad raacaysaba inaad dharkii iska dhigto caadiga ahaa oo labadaadii go' xidhan tahay oo diyaarsan tahay sidaa waa sida kuu fudud haddii kale waxaa kugu dhici doonta adoo diyaaradda saaran inaad u baahato dharka inaad bedelato taasoo adkaan doonta ha dhowto marka sida kuu fudud sunnadana ah waxa weeyaan in aad muxuu ahaayey aad dharkaagii labadii go' sii xidhato wey ayib sidoo kale waxaa u fiican ruuxa intuusan xarmanin oo meeshii laga xidhanayay intaan la gaadhin inuu sidoo kale is-udgiyo cadar iyo barfuun iyo waxyaalaha udgoon inuu isticmaalo jidhkiisa udgiyo sidoo kale inuu jidhkiisa ka nadiifiyo waxyaalaha wasaqda isnadiifiyo maalan shaarubta oo kale inuu iska gaabiyo timaha maalan kilkiladoo kale sidoo kale inuu gooyo
timaha gumeerka ku yaala xubinka taranka ka koreeya iyagana inuu iska xiiro yani inuu isnadiifiyo cidiyaha iska jaro si uusan hadhowta ugu baahanin asagoo xarman inuu waxyaabahaas gooyo laana xaraan bay noqon doonaan markaad xarmato waa u tagi doonaa marka inuu isnadiifiyo kadibna diyaaradda marka la fuulo iyadoo la diyaarsan yahay insha Allah ta'ala diyaaraddu markay ku dhowdahay magaalada Jidda oo magaalada laga dagaa oo ay u laaban tahay taqriiban diyaaradda dhowr iyo 20 daqiiqo sida badan meeshii laga xarman lahaana ay 10 daqiiqo taqriiban u jirto ayaa inta badan ogeysiis la bixinaya luqadda carabiga inta badan ku baxaan diyaaradaha luqadda macnaha carabta oo la leeyahay meeshii laga xarman lahaa waxaan u jirnaa 10 daqiiqo ama 15 daqiiqo kadib baan mari doonaa ogeysiiskaas la bixin doonaa sida qaalibka ah way sameeyaan adiga marka waad isdiyaarin marka haddana miiqaadka korkiisa ay diyaaraddu ku aadan tahay meeshii laga xarman lahaa baa haddana mar labaad ogeysiis la bixiyaa oo la yiraahdaa haddaan miiqaadkii ku aadanna markaas la rabaa marka inaad xarmato culimada qaar kood waxay leeyihiin waana sida saxda ah diyaaraddu waxay ku socotaa speed aad u badan xawaaraheeda xoog bay u socotaa sidaas daraadeed waxa dhici karta marka la iclaaminayaba inay miiqaadka dhaafto sidaas daraadeed waxa fiican in markay miiqaadka ku soo dhowdahayba inaad xarmato laana waxa la isla ogol yahay hadaad intaadan soo gaadhin xarmato sax way laakiin waxa la diidan yahay adoon xarmanayn inaad dhaafto waa halisa markaad ku soo dhowdahayba inaad iska xarmato way fiicanta طيب see loo xarmanayaa way xarmashada waxa laga wadaa macnaheedu ma aha qalbigayga waxa ku jira doonid iyo rabitaan xaj ama umro intaasi xarmasho ma laana adoo meeshan fadhiya hadda intaasi qalbigaaga ku jirta xarmashada waxa la yiraahdaa macnaheedu amalka qalbiga iyo carabkood kaga dhawaaqdo waxa aad rabto inaad samayso maxaad rabtaa inaad samayso ma xaj baad rabtaa ma umraad rabtaa ma labadoodiyo isku dhex jiraad gudan rabtaa waa u tagi doonaa tafsiilka qaabka ay u qaybsamaan iyo ruuxu midka uu ka dooranayo laakiin meesha markaad joogto ayaa la rabaa inaad muxuu ahaayay ku dhawaaqdo waxa aad ku dhawaaqi doonto insha Allah ta'ala dib baan ka tilmaami doonaa طيب xajku marka waa cibaado ilaahay tabaaraka wa ta'ala waqtina u sameeyay meel lagu gutana u sameeyay waqti la gutu sameeyay waana mid ay culimadu u yaqaanaan mawaaqiitul hajj az-zamaniyya la yiraahdo waa waqtiyada ilaahay xajka ugu tala galay ee zamanka waa 3 bilood bisha shawaal ee ramadaan ka dambaysa bisha hadda aan ku jirnay dilqaada iyo bishan soo socota ee dilxijja dhamaanteed ma ku wada jirtaa mise dhowr iyo 10 bariye hore waa khilaaf been ulama laakiin 3 bilood baa waxa la yiraahdaa ashhurul hajj waana mid rabbi yiri tabaaraka wa ta'ala al hajj ashhurun ma'luumat hajku waa bilal la yaqaano macnaha maxaa laga wadaa bilaha ka hor ama kadib hadaad xaj xidhato ma soconayo waa in xajka xidhashadiisu uu bilaha dhexdooda galo waa qodobka labaad xajka xidhashadiisa meel walba lagama xidhan kare ilaahay sohdimuu u sameeyay meel khaas ah bay shariicadu u sameysay oo nabiga xadiistiisa ku timi sallallahu alayhi wasallam dadka ama xajka dibadda kaga iimaanay ama magaalada maka dhexdeeda ka xajinaya ama agagaarkeeda ka xajinaya ruux walba waxa loo sameeyay meel iyo sohdin la rabo inuu san dhaafin asagoon xidhanin sohdimaha marka waxa la yiraahdaa al-mawaqit al-makaniya la yiraahdaa waa meelaha ilaahay uu sohdimeeyay in laga xidho xajka iyo xumrada waxa la yiraahdaa waa dhowr reer Madiina waxa loo jideeyay meel dil xulayfa la yiraahdo magaalada aan ka fogeyn inay ka xarmadaan
waana waxaa la yidhahdaa mawaaqiidda midka ugu fog maka ayaa la yidhahdaa. miiqaadka labaad juxfa la yidhaahdaa, waxaa ka xarmada dadka ka yimaada shaam, suuriya, urdun, yacni filistiin, dadka ka yimaada iyo reer masar iyo reer madiina hadday jidkaa maraan ayaa loogu talagalay meeshaa markay marayaan inay ka xarmadaan. ayib, juxfa la yidhaahdaa miiqaad weeye, iyaduna miiqaadka labaad wey. miiqaadka saddexaad hadda waxaa la yidhaahdaa waa mahjuura. juxfadaasi magaalay ahaan jirtay, laakiin nebiga sal alla alay wasalam baa ilaahay wuxuu weydiistay in qandhada ama xanuunka madiina iyada loo raro. wixii intaa ka dambeeyena waxaa la yidhahdaa magaalay ahaan jirtay laakiin mahjuur bay noqotay, meel lama degaana wey. hadda masaajid iyo meel laga xarmado basaa ku yaalla, laakiin dadku in badan waxay hadda ka soo xarmadaan magaalada raabiq oo ka yara koraysa wax yar ayaa laga xarmadaa. miiqaadka saddexaad qarnulmanaasil baa la yidhaahdaa, ama qarnu thacaalibna waa la dhahaa. isagana reer najdi baa loogu talagalay inay ka xarmadaan. reer najdi waa kor iyo muxuu ahay riyaad iyo wixii xagga ka yimaad ayaa loogu talagalay. miiqaadka kale waxa weeye yalamlam baa la yidhaahdaa, isagana waa miiqaatu ahli lyaman. reer yaman miiqaadkooda waa, macnaa waxaa laga wadaa reer yaman iyo wixii xaggooda ka yimaada. annaga marka waxaan ka jirnaa dhanka yaman baan jirnaa, koonfur baan jirnaa. miiqaadkeennu waa miiqaadka reer yamaneed iyo lamlam baa la yidhahdaa. marka miiqaadka kale daatu cirqin baa la yidhaahdaa, isagana xadiidkana waa ku sugan yahay, waxaa loogu talagalay reer ciraaq. meelahaas dadka deggan iyo dadka soo maraya kor ka imaanaya ayaa sohdimo ay ka xarmadaan laga dhigay. xadiiska nebiga sal lla lay slam fi saxiixayn min xadiidi cabdillahi bni cabbaas ayaa macnaha tilmaamaya. waxaan haysanaa marka meesha laga xarmanayo ha dhaafin adoon xarmanin. xilligaad xarmanayseed xidhanaysana ha noqoto waqtigii bilihii loogu talagalay in la xarmado. ayib, waxaa imaanaysa marka oo ku xigta maxaan xarmadaa, maxaan xidhaa. xajka aan rabo inaan xidho waa noocee. taasi waxay keenaysaa inaan nidhaahno xajka ama qaabka loo xajiyo waa 3 nooc. saddexdaa mid ka mida in aad yacni ku tala gasho oo aad xidhato ood xarmato waa. saddexda midka koowaad waxaa la yidhahdaa tamatuc. tamatucana waxaa la yidhahdaa in aad cumro xidhato. cumraad xidhan markan horeed socoto, cumro keliyaad xidhan. waxaad leedahay labayka cumra, labayka cumra, alla waan ku ajiibay oo cumraan kugu ajiibay. cumro keliya. cumradaa markaad xidhato acmaasheeda waan sheegi doonaa. markaad gudato oo dhammaysato waad iska xalaaloobi, kadibna isla safarkaa iyo sanadkaas baad haddana xajkii samayn. marka waa cumro madax bannaan oo hore iyo xajkii oo ku xiga oo isla hal saniyo hal safar aad samaysay. waxaa la yidhaahdaa tamatuc baa la yidhahdaa noocaas. nooca labaadii waxa weeyaan inaad xaj keliya ku tala gasho, cumraba qorshaha kuuguma jirto, waxaad rabtaa keliya inaad xaj gudato. miiqaadka markaad marayso waxaad markaa leedahay labayka xajan ama allahuma labayka xajan, ilaahu xaj baan kugu ajiibay. marka iyadana qaabkaad samayn doonto waa sheegi doonaa, xaj keliya ruuxu markuu wato. nooca saddexaad waa in aad rabto xaj iyo cumro isku dhex jira oo acmaashoodii isdhexgelayaan, oo acmaash kala baxsan aan ahayne hal camal baad wada samaynaysaa, isagaasaa xajkiina kuu noqon cumradiina kuu noqon. taana waxaa loo yaqaanaa qiraan baa loo yaqaanaa. waa isku lamaanin, acmaashii xajkii ayaad isku lamaanayso oo isdhexgelisay. saddexdaa qaabbaa kaa markaad xarmanayso dambe saddexaad aad xidhanayso waxaad ku xidhanaysaa ood leedahay labayka xajan wa cumra. alla waxaan kugu ajiibay xaj iyo cumro wada socda. waa qaabka saddexaad waay. saddexdaa qaab baa loo xajiyaa. saddexda qaab
midka ugu fadli badan ee ugu fiican ee xagga ajirka ugu badan waa ka ugu horeeya ee tamattuca sida xooga badan ee raajixa maxay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam xajkiisu qiraan buu ahaa isaga wuu isdhexgeliyay xajkiga umrada oo noocaas isaga xajkiisu ahaa sida raajixa laakiin markuu Makka tagay oo uu xoolo wado hadyi keenay ayuu wuxuu yiri haddaan ogaan lahaa waxaan hadda ogaa arrinkayga haddaan soo qaabilsan lahaa horay u tagay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam hadiyina ma keeneen umraanan ka dhigan lahaa yaani qiraanka waxaan ku bedelan lahaa tamattu baan ku bedelan lahaa saxaabadiisu markay tageen ayagoo xaj kaliya watana wuxuu amray umra u bedela markay qaarkood waxoogaa isiyara maartay ka yara gaabiyeen oo ka yara dib dhaceenna waa u xanaaqay nabigu sallallahu alayhi wasallam intaas oo dhan waxay faa'iideynaysaa inay xoog badan tahay saddexda nooc waxa u fadli badan nooca la yiraahdo tamattuca oo macnaheedu yahay inaad umrada hormariso iyada marka hore si madax banaan u gudato xajkana aad ka dambayso isla safarta aad gudato isagoo acmaashiisu ka madax banaanta taas ayaa u fadli badan muxuu ahaay oo fiican hatta waxa raajix xoog badan xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam dakhalat al-umratu fi al-hajj ila yawm al-qiyamah umradii xajkay dhex gashay ila qiyaamada laga gaaray umriya xaj ma kala baxsana bimaana wuxuu ka wadaa in la isla umraysto allahumma umradii xajka la isla guto oo tamattu hal safar aad uga wada faa'iideysato hal ruux baa waxa u fadli badan inuu qiraankiisa wato bal in loomaba ogolay qaar kood leen culimadu waa ruuxa xoolo ka soo kaxeeyay xaramka banaankiisa xoolo ka keenay oo hadyi waday ruuxaasi sidii nabigu sameeyay sallallahu alayhi wasallam isaga waxa u fadli badan oo uu sameeynaya qiraanka saxaabada intii hadyiga waday xoolaha banaanka ka keentay xaramka keentay qiraan bay iyo xajkoodu wuxuu ahaa qiraan sida nabiguba sameeyay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi طيب taasi waxa weeye marka noocyade saddexda nooc ayaan marka kala ogaanay nooca u fadli badanna waa tamattuca isagaana hadda maanta u fudud maxaa yeelay markaad gudato umrada waa u tagi doonaayo waad iska xalaaloobi dharkaagaad xidhan wixii xaraam ka noqday ba xalaal ku noqon magaaladaad iska joogi ilaa xajka la gaaro labada kale waxay kaga adag yihiin ayaga ma xalaaloobaysid ilaa la gaaro maalinka tobnaad ee xajka yawm an-nahr ilaa la gaaro ma xalaaloobaysid laakiin umrada hadii aad tamattu ka dhigato umrada waxay ku saamaxaysaa markaad amalkeeda gudato inaad marka aad iska xalaalo waxa ku banaan hadii aad baqayso oo isleedahay ama wuxuun aadan ku talagelin kugu yimaada markaad xiranayso waxa fiican inaad sharti dhigato sida xadiidkii Dubaa'a bint Zubayr ibn Abd al-Muttalib النبي صلى الله عليه وسلم يعني waxaa tiraahdaa Allahumma mahilli haythu habastani ilaaha yawmeeshi aan ku xalaaloobayo waa meeshaad igu celiso meeshan dhaafi waayo ilaahu waan ku xalaaloobaya markaad xarmanayso xiranayso hadaad inta ku darto oo hadhow in case waxaadan ku talagelin kugu yimaado مثلا lagu soo celiyaba ama lagu xidhaba way dhici kartaa xabsi aad gasho acmaashiiba sameeyninba ama aad jiratood acmaashiiba sameyn weydo waxay ka baajinaysaa shartigaasi wuxuu ka baajinayaa laba qodob waa midda koobaad ee wax xoolaa inaad gowracdo kugu laazimi maayaan xisaarka celinta lagu celiyay waxay ka baajinaysaa shartiga hore celintaasi xoolihii ka dhalan lahaayay la qali lahaa waa midda labaade xajkaagu haduusan waajib ahayn inay soo noqotood guddo mid labaad baa kugu laazimi lahaa haduusan xajku waajib ahayn haduu waajib yahay laba gooroba inaad soo celiso waa laazim laakiin haduu sunno ahaa oo lagu celiyo adoon sharti dhiganin marka waxa laazim noqonaya inaad mar labaad soo xajido hadii umra laga celiyo mar labaad inaad soo umraysato guddo ayaa laazim kugu noqonaya sida culimo fara badan ay qabaan marka shartigani faa'iidadiisu waa taa wuxuu ka baajinayaa hadii lagu soo celiyo arimahaas uu ka baajinaya shartiga aad dhiganayso macna way ku banaantahay su'aasha taala waxay tahay markaan xarmanayo oo xajka xidhanayo ama umrada xidhanayo qabays ma la iga baahan yahay qabays waa soo sheegnay loo baahan yahay
laakiin waxa meesha ku jira wax salaad khaasa oo xidhashada xajka iyo umradu ay leeyihiin ma jiro sida raajixa wax salaad oo sunnah oo meesha la tukanayo ma jirto kaliya nabigu wuxuu sameeyay sallallahu alayhi wasallam meeshii miiqaadkii laga xarmanayay wuxuu ku soo aaday xilli duhur taagan yahay duhurkii buu tukaday kadibna hashiisii buu fuulay korkeeda iyadoo isagoo saaran buuna nabigu xarmaday sallallahu alayhi wasallam allahumma haddii meesha aad ka xarmanayso aad madiina ka timid oo dal xulayfa meesha la yiraahday reer madiina ay ka xarmadaan halka haddii ay tahay meeshaad ka xarmanayso markaa waxaa sunno ah 2 ragcadood oo aan xarmashadu lahayn ee laakiin meesha iska leh nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu jibriil waa u yimid markaasuu wuxuu ku yiri tog barakaysan baad joogtaaye tuko marka 2 ragcadood togga iska leh waad العقيق meeshan uu ku yaala dal xulayfa halka hadaad ka xarmanayso 2 ragcadood oo sunna ah oo meeshu leedahay boos ku leeyahay ayaa wanaagsan inaad tukato amma mawaaqida kaliya meelaha kale laga soo xarmado xarmashaduna salaad khaasa ma leh meelaha laga xarmanayana salaad khaasa ma leh qodobna ka isaga طيب waxa inta xiga markaad xarmato oo diyaaradda miiqaadkii markay marayso aad tiraahdo labbayka umratan waxaan rabaa insha Allah ta'ala inaan marka hore idin sharxo sidii idinkoo gudanaya nooca ugu fadli badan oo tamattuca markaan tamattuca sharxo kadib ba waxaan dib ka sheegi doonaa ruuxa xaj kaliya wata mufridka ama qiraanka wata maxay ku kala gedisan yihiin wax yar bay ku kala bedelaan doonaa waxay ku kala bedelan yihiin marka dib baan ka tilmaami doonaa laakiin waxaan rabaa inaan sifeeyo sharxo ruux tamattuc gudanaya oo umro hore iyo xajkii oo ka dambeeyo kala madax banaan doonaya inuu guto waana sida fadliga badan ee ajirka badiisu ku jiro طيب miiqaadkii markii la gaaray waxaan nidhi wuxuu xidhanayaa umru xidhanaya oo wuxuu leeyahay labbayka umratan طيب markuu xidho waxa sunna ah inuu markaa bilaabo talbiyadii inuu ku dhawaaqo tawxiidka oo nabiga sallallahu alayhi wasallam muxuu ahaayay talbiyadii laga bartay labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak waxa kale sugan oo iyadana aad ku dari kartaa sidii ka sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam labbayka ilaaha al-haq ayadana way suganta saxaabada qaarkood waxay dhihi jireen nabiga oo maqlaya sidoo kale labbayka dhal ma'arij labbayka dhal fawadil labbayka dhal ma'arij labbayka dhal fawadil saxaabada qaarkood way qaadi jireen nabiga oo maqlaya sallallahu alayhi wasallam ayadana hadaad ku darto dhibaato male طيب taani waa talbiyada marka waxa weeye waxa fiican oo sunna inaad kor u qaado oo aadan qarsanin oo hoos u dhigin inta qaadi karto inaad qaado hayla nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu jibriil baa yimid oo wuxuu amray inaan saxaabadayda amro iyo dadka la socda an yarfa'u aswaatahum bitalbiya inay talbiyada kor codkooda ugu qaadaan labbayk allahumma labbayk inta gaarsiin karto kor u qaad maxaa yeelay sida xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam afdalul hajj al-hajj wal-thajj nabiga sallallahu alayhi wasallam hajj waxa u fadli badan xoolo iyo dhiig la daadiyo iyo talbiyada oo kor loogu dhawaaqo ba xajka u fadli badan nabiga sallallahu alayhi wasallam marka in kor loo qaado ayaa sunna saxaabadu ridwaanullaahi calayhim kor bay ugu dhawaaqi jireen ilaa ay xabeebtaan oo cunahoodu isxidho ayay kor ugu qaadi jireen macna culimada badankood waxay qabaan talbiyada lagu dhawaaqayo dumarku ayagu hoos bay u qarsanayaan kor ugu dhawaaqi maayaan waa sidii culimada badankood qabaan laana waxay leeyihiin asal waxa loogu talagalay dumarka inaysan sawdkoodu kor u kicin laakiin bacdu ahli cilmi ba waxay leeyihiin haday dadka ka agdhow iyo dadka la socdo maqashiiso kor u yar qaado dhib male sidaasina Aisha ay ka suganta way talbiyeysan jirtay labbayk allahumma labbayk korbayna u yar qaadi jirtay طيب marka waxay leeyihiin dhib male xoga haday kor u yar qaado wax dhib male beelay talbiyada marka uu wadaya ruux uu wadaya
maxay talbiyada aad qaadayso wax alla waxa dhinacyaha ka jiro oo dhan way kula talbiyeysanayaan adi ma maqlaysid laakiin dhagaxyaanta iyo geedaha iyo waxan dhinacyaha ka jiro oo talbiyada way kula qaadayaan macna khaasatan markaad ama daadagayso oo meel daadaga ku daadagayso ama meel dalcad aad fuulayso ayada si khaas ah talbiyadaasi marka waa wadaysa hadii aad marka qaar kood aad ku dhex darto talbiyada aad tahliisha ku dhex darto ayadana dhib male oo la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah hadaad ku dhex darto marna tan tiraahdo ayadana way ka sugan tahay nabiga salawaatu rabbi wa salaam alayhi oo iyadana waa kay weyn طيب talbiyada waad wadi diyaaradii baa nala degtay jiddaan tagnay meel madiinatul xujaaj la yiraahdo la isku xareeyay oo xogaa basaska lagu sugo ma habeen ma saacado talbiyadaadaad wadan baskii baa la fuulay waxa loo sii socdaa Makka talbiyadaadaad wadan Makkaad gashay magaalada Makka markaad gasho aad sii galayso haday ku suroobi karto inaad qabaysato qabaysku markaas u sunnay galitaanka Makka in loo qabaysto taasaa nabiga ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu alayhi laakiin maanta wax fudud ma aha maanta waaqiceenan ma fududa inaad baska ka degto oo qabaysato laana adiga dhanba wad afduuban tahay ma lagu ogolaba inaad dhaqaajiso dad baa ku wata shirkadaha ku wata ma degi kartid sidaas daraasteed qabayskaasi waa sunno hadii uu adkaadana waa la isaga gudbayaa waa marka Makka la galay طيب jidka doontaad ka gali kartaa laakiin nabigu jid gooniya buu ka galay maxaa yeelay kullu fijaji makkah tariiqun wa manhar ibn sallallahu alayhi jidadka Makka dhan waa jid laga gali karo rasuulku sallallahu alayhi wasallam saadu socoto taqriiban sida ay sameeyaan waxaad ku degaysaa hotelkaagi meel baa lagu geynaa hotel baa lagu geynaa kaadar baa lagu siinaa gacanta baa lagu xidhayaa calaamada ay aadan lumin kaad baa lagu sameeynaya waxa soo dhan muxuu ahaayay muxuu waad xarmanta labadaadii go'na waad qabtaa waadna talbiyeysanaysaa kolba sidii kuugu surowda طيب markaad saa u xarmato oo aad Makka tagto marka waxaad u qastaysaa oo aadaysaa masaajidkii iyo Kacbadii طيب Kacbada markaad dimaado masaajidka ka horeeyay leen Kacbadu waxay ku jirtaa masaajidka gudihiisa markaad masaajidka gashood ka gudubto gudihiisa Kacbada ugu tagaysaa sidaas daraadeed markaad sii galayso masaajidka waxa fiican in aad samayso nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani adkaartii uu jideeyay masaajida gelitaankooda uu jideeyay waa sunna iyadana markaad masaajidka xaramka galayso in aadan halmaamin oo lugta midigta intaad hormariso inaad tiraahdo Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim Allahumma iftah li abwaab rahmatik lil masajid baad galaysa ama aad tiraahdo a'uudu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytan ar-rajim wa sunno masaajida oo dhan bayna sunnowta markaad Kacbada aragto intaad masaajidkii gasho Kacbadu ku muuqato waxaad samayn kartaa inaad labada gacmood taagto Abdullah ibn Abbas bay ka sugantay markuu Kacbada arkay buu labada gacmood taagay طيب Kacbada markaad aragto araggeeda aad aragtay dhikri khaas ah iyo wax la akhrinayo gooniyo nabiga ka sugan ma jiro taa waxay khilaafsan tahay kutubta yaryarkee dadka qaar kood ay wataan baa waxay leedahay Kacbada markaad aragto dhikrigaas akhri wax ka jira male wax dhikri khaas oo meesha ku soo arooro nabiga ka sugan ma jiro salawaatu rabbi wasalaamu alayhi markaad Kacbada tagto waxaad bilaabaysaa marka inaad dawaafto umradaadii baad gudagelaysaa umradii xagee ka soo bilaabatay waxay ka soo bilaabatay inaad soo xarmatay sooma soo xiratay Kacbada timid waxaa laga rabaa marka Kacbada marka timid 3 amal ama 4 amal baan dhaw inaad samayso Kacbada wareegga lagu wareegayo dawaafka 2 ragcadood oo ka dambeeya oo la tukan Safiya Marwa dhexdooda oo la socon iyo xiirasho timaha la xiiranaya ama la gaabsanayo intaasi waa umradaadii shaqadaad qaban lahayd طيب mid baan isu dul taagaynaa mid walba qaabkaad u sameyn lahayd marka xarmashadii waan soo marnay tawaafka Kacbada aad dawaafayso qaabkeen loo dawaafi labada ragcadood ee la tukanaya xagee lagu tukan maxaase la akhrin sacyiga labada buurood dhexdooda la soconayo qaabkee xiirashada iyo gaabsiga qaabkee
afarta qodob mid walba sharax yar baan isdul taagaynaa insha Allah ta'ala kacbada markaad timaado waxaad ka bilaabaysaa wareegaaga meesha uu ku aadan yahay dhagaxa madow macnaha wax weeyaan kacbadu waa afar tiir oo isdhowraysa waa sida hadda miiskan oo kale waa tiir iyo tiir iyo tiir iyo tiir waa afarta tiir waa afarta tiir mid ka mid ah buu dhagaxa madow ku jiraa qumaatigiisa marka meeshaas ku aadan dhagaxa madow baad ya socodkaagu ka bilaabanaya xataa haddaad kacbada dhinacyo kale ka soo gasho midna halkan aad ka soo gashay ilaa aad soo wareegtood halka dhagaxa madow ku jiro aad soo gaadho wareegaagu ma bilaabanin socodka kale soo socoteed meesha ku imaanayso ma aha muxuu ahaayay cibaado ma marka dhagaxa madow soo gaadho ayaa waxaad bilaabaysaa wareegii saxda mar dhagaxa madow marka iyo kacbaduba bidixday ka xigsanaya wareega markaad bilaabayso bidixday ka xigaan markaasaad sida u soo wareegaysa tayib dhagaxa madow markaad timaado waad ku jeesanaysaa markaasaad Allahu akbar leedahay Allahu akbar hadaad bismillah ka hormarisana iyadana waa sax oo tiraado bismillah Allahu akbar kadibna gacantaad marinaysaa dhagaxa madow hadday ku suurowdo inaad dhunkatana waa dhunkan isaga laftiisa dhunka hadday ku suuroobi karto intaad madaxa la gasho inaad ku sujuudana waad ku sujuudi hadday sujuudi ku suuroobi weydo oo dhunkasha ku suuroobi weydo oo inaad gacanta mariso ku suuroobi weydo oo dhunkato waana siday u badan tahay inayna hadoo kale ku suuroobi karin waxba isdhibin markaa dhagaxaas dhib mooyee wax kala kulmi maysid ha raadsanin dadkana ha dhibin aduguna ha isdhibin meeshaas kore ee la marayo markaad ku aadan tahay intaad ku soo jeesato ood xaqiisa soo qaabisho bismillaahi Allahu akbar dheh kana soco wareegaaga wado laakiin ha isku dhibin dadkana ha dhibin gacantaas uun kaga kaaftoon waxaa yeelay nabigeenu sallallahu alayhi wasallam عمر بن الخطاب وحو يري يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف عمر ونين حوق بدن باتهاي ددك تبرت درن هادبين بود وإذا أردت استلام الحجر أداد ربط دغخا إناد غعنت مريسو فإن خلا لك فاستلمه بود هدو كوعد لوبود جانس كهش هدا غعنت مرسو طيب وإلا فاستقبله وكبر هدي كسروبي ويدو انتاد كجيسته ان الله أكبر ده كان صعب النبي صلى الله عليه وسلم meesha dadka cawaamada ama caamada ah dib badan baa ka haysta yaani dhagaxa gaad buu isdhihi markaasuu dad fara badan burburin waxa laga yaabaa xataa dad inuu dilo oo sabab u noqdo xujaydu inay isjiiraan oo dad ku dhintaan asagii dib badan baa ka soo gaaray waxba isdhibin marka waxba ciidiga isgalin meeshaas mar bismillaahi allahu akbar kana soo shaqadaada wad tayib dhagaxaasi gacan marintiisa ajir badan baa ku jiro nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri dhagaxa maalinta qiyaamada waa la soo saaraya isagoo laba indhood leh oo wax ku arkayo carab uu ku hadlana leh wuxuu u marxaati kacaya cid kasto oo xaq ku taabatay waxa kale nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu yiri dhagaxa madow iyo rukniga ku xigo tiirka yamaaniga ee kan isaga xagga ka xiga ah labadaas taabashadooda dunuubta ayay daadiyaan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka ajir badan baa ku jira xadiis badan baa ku saarortay tayib dhagaxa madow marka timaado marka wareegii baad bilaabaysaa hal wareeg marka soo wareegto oo isaga timaado hal wareeg baa ku dhamaaday haddana mid kale aad bilaabaysaa hal wareeg baa ku dhamaaday 7 wareeg baad sidaa ku dhamaynaysaa sheekh baalkaasi cidi tilmaamaysa tilmaanto isagoo yar bay ficilad meesha la soo dhigo marka waxay ahayd bimaana wax weeyaan wareega hal mar markaad soo dhamayso dhagixi madooba ku aadantahay hal wareeg baa ku dhamaaday tayib wareega marka dawaafka hore ee kacbada tagtay ugu horeeyay wareega waxa ku dheer markaad wareega bilaabayso dawaafka bilaabayso ninna aad tahay dumar ma ninna aad tahay waxa sunna ah inaad samayso waxa la yiraahdo indibaaca waxa la yiraahdaa in aad marada go'a aad qabto faraqiisa midigta inaad kilkisha hoosteeda ka soo saarto faraqiisi kalena uu ku saaran yahay
garabka bidixda korkiis markaad faraqan xagga ka soo wareejiso halkanaad saaranaysaa marka labadii faraq halkan isugu tagayaan garabkana waa banaanaanaya waxa la yiraahdaa dibaac baa la yiraahdaa inta aad dawaafka hore ee ku timid kacbada marka timidba aad sameynayso sunnadaas uu leeyahay waxaadna ku baraarugi dawaafka kaliya iskale dibaaca dawaafyada dambo dhan ma laha markaad kacbada timida ugu horeysay dawaafkeeda iskale waxa kale iyadana sunna ah dawaafka hore in aad saddexda wareegay hore haday ku suuroodo waxoogaa inaad yaro orodood ruuculeyso saddexda hore laga bilaabo dhagax madow ilaa dhagax madow aad ka soo gaadho waa se goorma hadaad jaanis hesho waa inta badan aad jaanis hesho uma badna sooma hadaad jaanis weydo waxba ha ordin todobadaba aayir iska soco laakiin hadaad jaanis heli karto saddexda hore yaraha orod oo ruuclee taasina waa sunnadii nabigeena salawaatu rabbi wasalaam alayhi tayib wareega aad wareegayso waxaynu nidhi dhagaxa madow markastood marayso todobada wareeg hadaad taaban weydo oo dhunkan kari weydo gacanta taagi bismillah allahu akbar baad leedahay waad ka soconaysa waxa iyadana sunna ah haday ku suuroobi karto inaad taabatood gacanta mariso tiirka isaga ka horeeya markaad wareegayso oo waxa la yiraahdaa ar-ruknu al-yamani baa la yiraahdaa rukniga tiirka yamaneed labadan tiirba yamaniyiin baa la isku yiraahdaa yaman bay ku abtirsadaan maxay la dhanka yaman bay xigaan labada tiir ee dhankana shaamiyiin baa la yiraahdaa dhanka shaam bay xigaan labada magac bay kala leeyihiin marka tiirkan markaad wareegayso dhagaxa madow ka horeeya hadaad taaban karto isagana taabo gacanta mari hadaad taaban kari weydo waa say u badan tahay oo ku suuroobi waayo ha isdhibin ka soco hana gacanna ha taagin waxbana ha akhriin iska soco waa hadaad gaari kari weydo tayib waxa kale oo iyadana sunna labadan tiir dhexdooda markaad marayso socodka aad ku jirto meesha markaad ku aadan tahay inaad akhrido ducada rabbana aatina fid dunya hasana wa fil aakhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sunno waasi xagee labada tiir intaad u dhaxayso oo dhex marayso iimaaniyeenka ayadana waa sunno tayib todobada wareeg markaad saa ku dhamaysato labada tiir ee xagga xigeen nidi shaamiyeen baa la yiraahdaa ee qowlada yarta u dhaxayso qowlad yar dhisma yaroo gaaban baa u dhaxeeya labada tiir ee dhanka xiga ayaga lamana taabto la iskuna mashquuliyo waxa se laga maarmaan ah dhista yarta ee wareega inaad kor ka marto hadaad meel yar oo dhista wareega yarka iyo kacbada dhexdeeda meel yar oo banaan baa jirto la mari karo halka hadii aad markaad wareegayso marto wareegaasi kacbadii dhexdeeda aad martay maadan ku wareegin laana meesha yartee dhisan kacbaday ka tirsanta kor inaad ka martaa la doonaya marka ood kor ka wareegto macna todoba goor markaad sidaa ku dhamaysato todoba goor markaad wareegto oo wareegooda aad dhamaysato waxa kuugu xiga intaana ka gudbin dawaafka aad wareegayso kacbada dhikri khaasa oo soo arooray ma jiro marka laga reebo rabbana aatina fid dunya hasana oo labada tiir dhexdooda markaad maraysaa ka markii laga reebo dhikri karo khaasa ma leh kacbada intaad wareegayso ama quraan akhri ama ilaahay xus ama tahliisho ama muxuu ahaayay ama ducayso aday ku taala nabiga waxa ka soo sallallahu alayhi wasallam inuu yiri dawaafka kacbada lagu wareego waa salaad laakiin ilaahay wuxuu xalaaleeyay in la hadlo waa salaad lagu hadli karo faman nataqa fala yantiq illa bi khair bud ruuxi hadlaya khayr waxaan hayuusan ku hadli waxa la diidan yahay inaad kacbada adoo dawaafaya aad khalad ku hadasho wax khaldan oo shariicada khilaafsan aad ku hadasho ama iska sheekaysataba dadka qaar kood markay wada socdaan oo lilasaf markay wada socdaan oo koox wada socdaan meesha iyada wayba iska sheekaysanayaan xalaga waxaan macna lahayn laga sheekaysto qabiil laga sheekaysto jabhadayn laga sheekaysto siyaasad laga sheekaysto meesheedii ma sooma booskeedii ma marka dhikriga ilaahay iyo xuskiisa in aad ku mashquusha la doonayo hadalka caadiga aad iska yarayso beedka looma ogola haweentu inay dawaafto markay caado qabto ruux qaawana looma ogola inuu dawaafo sida nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu ka wadhameeyo oo wareegii ugu dambeeyo toddobaad uu dhamaysto kacbada
wuxuu daboolayaa garabkii bannaanaa wareegga ugu dambeeya markaad dhammaysatay toddobaad waa inaad garabka daboosho oo aad gu'i ku soo celiso si caadi ah indibaacii marka waa dhammaaday ayib markaad kadib waxaad aadaysaa dhanka muxuu ahaayey maqaamu ibraahimka waxa weeyaan wuxuu ku aadan yahay markaad dhaafto dhagaxa madow tiirku ku aadan yahay wax yar markaad xagga u dhaafto dhulka kaa xigsanaya dhanka midig ayaa la yidhaahdaa maqaamu ibraahim dhankaas waa inta badanna waxaad ku arkaysaan guri yaroo dhalo oo dhisan baa meesha ku yaalla gurigaa dhalada ah gudihiisa waxaa ku jirta dhagax ay ka muuqato raadkii lugtii nebi ibraahim markuu kacbada dhisayey oo kacbada dhismaheedu kor u yara kacay ayuu dhagax keensaday dhagaxii buu isku taagay ilaahay aayaadkiisa ka mida weeyaan dhagaxii unbaa lugtiisa qabsadoo raad noqday dhagaxu marka meeshuu ku jiraa wixii dhulkaa ka dambeeya iyo meeshaas ayaad marka aadaysaa markaad sii socotana waxaa fiican inaad akhrido aayadda qur'aanka wattakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa kadibna meeshaasaad meelaad kaga tukaad raadsan haddii kuugu adkaato inta badan waa cidhiidhiya ha isku dhibina dib u bax ilaa masaajidka haddaad meel ka hesho xataa dib isaga bax meel markaad hesho ku tuka marka 2 ragcadood baa tukan 2 ragcadood midda hore waxaad akhrinaysaa qul yaa ayuhal kaafiruun midda dambana qul yaa kaafiruun markaan leeyahay macna faatixada iyo qul yaa kaafiruun waa midda dambana waxaad ku akhrinaysaa faatixada iyo qul huwalle halka 2 ragcadood baad ku tukan nabigu sidoo sameeyay waxay 2 ragcadood markuu dhameystay ceelka zamzam buu tagay biyuu ka cabay aad buu uga dhargay wuu isku shubay kadibna wuu soo noqday mar labaad buu dhagixi madooba ku soo laabtay oo uu masaxay haday ku suuroobi karto waa okay hadii ku suuroobi kareenina waa isaga socon waxaad aadaysaa marka taasi waa dawaafkii oo dhamaynay waxaa ku xiga inaad aado labadii buureed ee Safiya Marwa buuray ahaan jireen laakiin hadda waa meel iska gaagaaban oo taagtaag labada xaggooda aadaysaa waxayna ku quman yihiin dhagaxa madow xaggiisay ku quman yihiin wax yar bay xagga yar jiraan xaggaad aadaysaa ishaaradaad raacaysaa waxaad fuulaysaa oo ugu hormarinaysaa meesha la yiraahdo buurta Safa ayaad fuulaysaa markaad fuusho oo aad buurta ku sii socoto oo ku dhawaato waxa iyadana sunnah inaad akhrido aayadda quraanka inna as-safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa'a khayran fa inna allaha shakirun alim bimaana wa markaad ku sii socoto ku dhawaato kadibna nabigu wuxuu nabda bima bada allah bihi ti ilaahay ku bilaabay baan ku bilaabayna labada buurood quraanku wuxuu ku bilaabay Safu ku bilaabay taa uu quraanku hormariyay baan anagana ku bilaabaynaa nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ruux fuulaya marka Safa korkeedu fuulaya markuu fuulo uu soo jeesanaya kacbada xaggeedu uu soo jeesanaya kacbada hadduu arki karo inuu arkaa fiican haddii kale inuu wajigiisa ku aadiyo siday ugu suuroobi karto buurta korkeedii buu saaran yahay kacbaduna uu soo jeedaa markaasuu wuxuu akhrinayaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 goor لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ماشي وسارين قبلتنا كوجيدا صفقر كيدو سارين مركو انت اخريو يدعيسن تو قعمها كورو تاغو دعيسن ducadiisa markuu dhamaysto hadana wuu ku celin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah sidii uu soo maraya markaasuu hadana ducaysa mar saddexaad buu hadana ku noqon markuu ducada dhamaysto markuu dhameeyo hadana mar saddexaad buu gadaasheeda ducaysan 3 goor oo dhikriga uu akhriyay markasta uu dhameeyana uu ducaystay buu Safa korkeeda saarnaa qibladana uu soo jeeday inta markuu dhamaystay buu daadagay wuxuu ruuxu aadaya marka
marwuu aadaya buurtii kalu aadaya طيب socodka uu marka socdo marwo u sii socdo socodka uu socdo yani waxa jirta meel ahaan jirtay labada buurood dhexdooda u dhaxaysay oo tog bacaad la ahaan jirtay hadda se wixii oo dhade waa la aasay oo waa yani smith iyo tiles iyo waxba la dhigay waxba ka garan maysid laakiin calaamad baa loo sameeyay korkaaga markaad socoto waxaad ku arkaysaa muxuu ahaa nal cagaar ah iyo nal kale oo cagaar oo halka ka muuqdo korkaaga ku dhagan nalka cagaaran markaad ku aadan tahay orod baad bilaabaysaa ilaa aad nalka kale cagaaran ka gaadho dhexdooda waad ordi markaad soconayso kadibna saad markaad dhaafto waad iska socon tartiib baad u socon buurta marwo korkeedaad fuulaysaa qibladaad ku soo jeedsanaysaa sidii aad safo korkeeda samaysay baad ku samaynaysaa markaad dhamaysato waad soo gadoomaysaa waxaad soo aadaysaa safaad ku soo noqonaysaa markaad meelihii calaamadaha lahaa nalka cagaaran lahayd dhex marayso haddana waad ordi noqodka sidaas baa waxaad ku dhammaysanaysaa 7 socod oo markaad safo ka tagto oo marwo aad tagto waa hal socod markaad marwo ka soo noqoto oo aad safo ku soo noqotona waa socod labaad sidaas baad 7 ku dhammaysanaysaa midka u dambeeyana marwo korkeedu ku dhamaanaya saa waxaan u leeyahay dadka qaarkood waxa ka khaldanta halkii wareegba sidii wuxuu u qaadanayaa dawaafkii kacbada oo kale markaasuu halkii wareegba safo markuu ka tago oo marwo tago oo soo noqdo oo safo yimaado buu hal xisaabsanaya taa marka 14 bay ka noqoni sooma marka sida saxda halka buur labada buurood dhexdooda halkii socodba waa wareeg sidaas ay 7 ku dhamaan markay saa kuugu dhamaato oo socodka aad dhamaysato waad ka tagaysaa waxa ku laaban marka muxuu ahaayay in aad timaha xiirato ama aad gaabsato inaad timaha xiirato ama aad gaabsato nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu ilaahay u bariyay dadka xiiranaya ilaahay inuu naxariisto markaasa waxay saxaabadu yiraahdeen rasuulka ilaahay kuwa gaabsanayana nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam kuwa xiiranaya Allahu naxariisto rasuul ilaahay kuwa gaabsadana kuwa xiira Allahu naxariisto rasuul Allah kuwa gaabsadana Allahu naxariisto mar danbay galeen sooma marka sida fadliga badan waa xiirashada laakiin haddayna xajkii soo dhow yahay oo iyadoo xajkii maalmo ka laaban yihiin timuhu ayna soo bixi karin haddaad tagto gaabsiga ku fadli badan maxaa yeelay xajkana waxa lagaaga baahan doonaa timo aad xiirto sooma marka haddii xajkii soo dhow yahay oo timuhu muddada ayna ku soo bixi karin umrada waxa ku fadli badan inaad gaabsato si hadhow xajka aad u xiirto timo kugu soo hadhaan ama haddii waqtigu kala fog yahay xiirashada fadli badan haddaad xiirato markaasi oo aad timaha xiirto khalaas waxa ku dhamaaday umradaadii oo ka kooban inaad soo xidhato soo xarmatay inaad dawaafkii samaysay labadii ragcadood oo tukatay labada buurood dhexdooda 7 goor socotay xiirasho ama gaabsi oo samaysay inta markaad samayso umradaadii waa ku idishay waad xalaaloobi marka waxaan ka wadnaa waad xalaaloobi bimaana waxyaalo fara badan oo lagu diiday markaad xarmatay oon ka hadli doono baa ku xalaaloobay yaani caadi baad noqonaysaa marka oo waxyaabihii oo dhan baa xalaal ku noqonaya oo maxaa kamid ah waxyaalaha yaani ruuxa markuu xarmado aan loo ogoleyn oo xaraam ka noqonaya way far badan yihiin marka saa u xarmataba waxa xaraam ka noqonaya inaad timahaaga xiirto markaad saa u xirato umradaba waxa xaraam ka noqonaya timaha inaad xiirto oo timaha ma xiiri kartid meeshay doonaan jirka kaga yaalaan ma xiiri karis waxa kale toon lagu ogoleyn in aad cidiyahaaga jarto ama gaabiso waxa kale lagu ogoleyn inaad madaxaaga dado haddaad nin tahay rag haddaad oo shay madaxa ku dhagan ama madaxa la xidhiidha inaad ku daboosho umaamad ama koofiyad ama go'aad saartay ayaan la ogoleyn laakiin hadduu shay ka koreeyo yahay sida mesela dallad oo kale
ambareelo kale ama baabuuraad ku jirto kale ama guri oo kale saqfigiisa koron kugu dhaganayn taa dhib ma laha waxa kale lagu ogolayn dharkan caadiga inaad qaadato haweenta iyada waxaan loo ogolayn inay indhaha shareerato ama ay muxuu ahaayay golfiski gacmo geliska xidhato waxa kale lagu diidi wax udgoon oo dhan baa lagu diidi waxa lagu diidi ugaarsiga oo jiray waagii hore ugaadha in la dilo waxa lagu diidi in aad guursato ama guuriso ama aad doonto waa lagu diidi mar haddaad xarman tahay mana guurin kartid mana guursan kartid mana dooni kartid ama wakiil noqo ama aduguba asal noqo sida xadiidka Uthman ibn Affan tilmaamay waxa lagu diidi markaad xarmanto sidoo kale xaaskaaga inaad u galmooto inaad taataabato dhunkato hawlihii ka horeeyay galmada iyadana waa lagu diidi waxa soo dhan baa waxa la isku yiraahdaa maxduuraatul ihraam markaad xidhato iyo xaraam ka noqonaya markaad umradii dhamaysato marka wixii xaraam ka noqday oo dhan baa dib xalaal kuugu noqonaya Soomaaliyeed ma timihi ma xiran ama ma gaabsanin dharkaaga xidho barfuunka iyo cadarka yani isticmaal reerkaaga haday kula socdaan waad isu fasaxantihiin wahaakada wixii lagu diido dhan waa lagu ogolaanay magaaladaada iska joog marka magaaladaada iska joog salaadaha iyo cibaadaadkaaga iska wad inta umrada markaad ku dhamaysato maalinka 8aad oo yawm tarwiya la yiraahdo ayaa markaasi xajku bilaabanaya xajku maalinkaas uu bilaabanaya yawm tarwiya la yiraahdo meelaha marka acmaasha xajka lagu sameeyo waa 3 meelood si aad ila socotaan aan idin hormariyo waa Makka oo magaalada gudaheeda oo Kacbadii iyo meeshii sacyiga ku taala Mina oo marka Makka laga tago meesha ugu xigta Mina waxa ku xigta Muzdalifa ku xigta Muzdalifa waxa ka dambaysa oo ka koreysa Arafa ka koreysa inta kalama xaramkay ku jiraan laakiin Arafa iyadu xaramka way ka baxsantay shanta meelood waxaan dhila afarta meelood ba acmaasha la sameeynaya xajka hadaad maqasho acmaashu inta soo meelood bay ka dhacaysa tayib maalinka marka la gaaro waxaad sameeynaysaa markaad umrada xidhanaysay sidaad sameeysay baad isu diyaarinaysaa waad qabaysan dharkii baad dib isaga furi labadii go' baad xidhan cadar iyo barfuun wixii udgoon baad ismarin waad isdiyaarin waad isnadiifin kadibna meesha aad degan tahay hotelkaaga gurigaaga meesha aad degan tahay baa xajka ka xidhanaysa maxaad leedahay labbayka xajjan ilatii horeen soo marnay maxay ahayd labbayka umratan tan waa xaj kaliya waxaad leedahay labbayka xajjan kadibna barqinkiibu nabigu sallallahu alayhi wasallam xidhay waxa la aadayaa Mina oo meeshii inoogu sokaysay 3 meelood meeshii ugu sokaysay Mina la tagayaa Mina marka la tago barqinkii tag duurkii tag meeshaas la joogayaa galabtaas habeenkaas waxa la tukanayaa duurka lagu tukan oo muxuu ahaayay 2 ragcadooda waqtigiisii baa la tukan casarka la tukan waqtigiisii isagoo 2 ragcadooda maghribkii baa caadi loo tukan 3 ragcadood cishihii baa la tukan asagoo 2 ragcadooda salaadii subax baa la tukan waa maalinkee maalinkii sagaalaad waay maalinka sagaalaad subaxdiisii waa maalinkii Carafa marka maalinkii Carafa waay maalinka sagaalaad subaxdiisa waxa laga dhaqaaqayaa Mina Muzdalifa dhexda ku jirtay maalinka shaqo male soomena Muzdalifa ku xigta Muzdalifa maalinka waa la iska dhaafaya waa la gudbaya waxa la tagayaa Carafa la tagay Nabiga sallallahu alayhi wasallam intuu san Carafa gaadhin 2 meelood buu dagay oo ku sii dagay laakiin hadda way adag tahay Carafa la tagay Carafa markii duurka la gaaro xilliga qorraxdu ay zuusha la gaaro ayaa imaamku khudbaynaya dadka u khudbaynaya kadibna waa la aadaamaya hal aadaan waa la aqimaya duurkii oo 2 ragcadood la tukanaya haddana waa la aqimaya casarkii oo 2 ragcadood la tukanaya jam'an wa qasran waana la gaabinaya waqtiga duhurkana la isugu geynaya la wada tukanaya saasa loo tukanaya haddaad imaamka la tukatana khayr haddaad imaamkaada la tukanin oo meel kale aad degantahay imaamka ka fogna meesha aad joogtaan baad ku sameynaysaa hal aadaan
oo labada salaadood ka dhaxeeya iyo mid walba aqimaad khaas ay leedahay sidaas la sameeyay inta markii la sameeyo kadib wax salaadood dambe oo u dhaxaysa laba ragcadood dhexdooda labada salaadood ee duurka iyo casarka la isla tukanayo wax salaadi uma dhaxayso wax salaado sunnana kama dambayso wixii inta ka dambeeya waxa bilaabanaya marka waxa loo yaqaan wuquufu arafa oo macnaheedu yahay istaaga arafo banka arafo istaagidiis istaaga maxaa laga wadaa dadka qaar kood waxa laga yaabaa inay u qaataan istaaga arafo inaad maanta dhan taagnaato macnuu ma istaaga arafo waxa laga wadaa ama dhinac u seexo ama fadhiiso ama taagnow ee digriga Ilaahay ku mashquul baa laga wadaa Ilaahay xuskiis quraan akhris ducayso adkaar Ilaahay un xuskiisa wax Ilaahay ku dhaweynayo un ku mashquul baa laga wadaa ama qaabkaad isu dhigayso magaadiid baad fuuli nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinkaasi halbuuba kor fadhiyay hashiisu kor fadhiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam saas daraadeed wuquufka waxa laga wadaa bimaana cibaadada lagu mashquula laga wadaa ruux arafo tagaya marka arafa bankeeda ama meesheeda banaan weeye laakiin hadda waxa laga dhisay teendooyin geeda laga abuuray meesha iyada meeshii aad ka degtaba waa okay nabigu sallallahu alayhi wasallam buurta aad arki doontaan oo arafo dhexdeeda ku taala jabalur rahma la yiraahdo oo dadku inta badan aadaan oo korkeeda fulfuulaan oo moodo sida koronkoro oo kale ay dul saaran yihiin buurta nabigu ma fuulin in la fuulana waxba loogama baahna ajir gooniyood ka heli fuulitaankeedana ma jiro nabigu sallallahu alayhi wasallam meeshuu istaagay waxay ahayd buurta hoosteeda dhagaxyaal waaweyn oo yaala buurta halkaasoo hashiisu taagnayd hasha korkeedu saarnaa laakiin wuxuu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waqaftuha huna wa arafatu kullaha mawqif halkan ana istaagay laakiin banka arafo dhan waa meel la istaagi karo meel alla meeshii kaaga soo kaagta adigu istaag laakiin waa inaad hubiso in aad xuduudii arafo gashay waxaan saa u leeyahay boodhan waaweyn baa meesha ku yaala markaad garayso arafo halkan ay arafo ka bilaabataa markaad ka baxayso waad ka baxaysaa musdalifa markaad galayso boodhan waaweyn baa ku yaalo ku tilmaamaya saas daraadeed waa inaad xuduudda arafo gasho hadaad ka soo marto xajkaaga waxba kama jiri doono maxay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-hajj arafa ibn sallallahu alayhi wasallam hajj wa un arafo hajj wa un arafa ibn sallallahu alayhi wasallam marka arafo banaankeeda la istaagaya maalinka isaga waa maalinka aad u fadli badan Allah tabaaraka wa ta'ala maalinka samada soo iimaanaya sida nabiga sallallahu alayhi wasallam markaasuu adoomadiisa ugu faanaya malaa'ikta xulay adoomadaydi fiiriya maxaa keenay rabbi uu naxariistaaday rabaan cadaab bay ka magan galayaan u sheegay inaan u dambi dhaafay rabbi tabaaraka marxaati ka ahaada waan u dambi dhaafay maalinka maalin uu shaydaan ka fool xun yahay oo ka murug badan yahay ma jiro maxaa yeelay ilaahay khalqiga uu naarta ka xoreynayo baa aad u badan marka inaad banaanka isaga ka faa'iideysato oo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam waxyaalaha u fiican ee looga faa'iideystana waxa kamid ah tawxiidka afdalu ma qultu ana wan nabiyuna ashiyata arafata la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir waxa ugu fadli badan waxaan iraahdaa aniga nabiyadu galabta arafa la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir hada doonto waa talbiyeysan kartaa labbayk allahumma labbayk waad wadi kartaa hada doonto quraan akhriso hada doonto ducayso wakuka tayib maalinka isaga in la soomo sunna ma ah dadka aan joogin arafa ee muslimiinta kala ah ba maalinka sunna u tahay inay soomaan amma dadka xajka jooga maalinka inay afuraan ba sunna waxaan nabigu waa afuraa salawaatu rabbi wa salaamu alayhi sidaas aad marka wadaysa hawshaas aad ku mashquulaysa si ilaahay tabaaraka wa ta'ala naarta kaaga xoreeyo markii qorraxdu dhacdo inta qorraxdu ka dhacaysa waa la joogi qorraxdu markay dhacdo ayaa marka laga soo dhaqaaqaya meesha la yiraahdo arafa laga soo dhaqaaqaya qorraxdu markay dhacdo tayib xagee la soo aadaya meeshii ku xigtay oo ahayd musdalifa qorraxda ku dhacday maalinka arafo salaadeeda maqribee soo gashay inaad arafo ku tukato sunnada ma ah salaada dib u rar musdalifaad ku tukan doonta cishahaad isla tukan doonta laakiin meesha ha ku tukanin jidka inta sii socotana ha tukanin waa sidii nabigu sameeyay sallallahu alayhi wasallam arafu ka dhaqaaqay markii qorraxdu dhacday jidku maray
markuu jaanis helo hasha waa socodsiinaya waa la xaadsanayay markuu waxoogaa cidhiidhi galana waa celinayay dadkana wuxuu amrayay tartiibsada sakiina xasila hadegdegina tartiibsada buu nabigu sallallahu alayhi wasallam sidaas marka loo soconaya tayib kadib marka tagto meesha la yiraahdo Muzdalifa marka tagto xilligaas ayaa marka salaada la aadaamaya hal aadaan wala aqimaya salaadii maghribka la tukanaya oo 3 ragcadood Muzdalifa lagu tukan wala aqimaya salaadii cishaha la tukanaya oo meeqa ragcadooda 2 ragcadood wixii inta ka dambeeya waa la iska seexanaya salaada cisha markuu tukaday kadib nabigu waa seexday hatta habeenka salaatul leyl uma kicin maxaa yeelay waad garan kartaayo maalinka horena waa maalintii Carafo waa la taagnaa waa la daalan maalinta soo socotana shaqo badan baa taala saas daraadeed habeenka in la nasto xikmad baa ku jirta waa habeenka Muzdalifa la joogo waa la iska seexanaya marka sidoo nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaa waagu bariyo markay waagu bariyo xilliga hore ee waagu bariyo buu salaada subax nabigu sallallahu alayhi wasallam tukaday oo muxuu ahaay labadii ragcadood ee fajrka ka horeeyay buu tukaday sunnada ah kadibna salaadii buu tukaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi tayib waxa meeshaasi baraarujin mudan Muzdalifa inaadan habeennimo ka tagin oo waagu kuugu bariyo salaada subax aad ku tukato baa hadiga nabiga sallallahu alayhi wasallam Allahumma dadka loo ogol yahay habeennimo inay Muzdalifa ka tagaan waa dadka tabarta daran duqeyda aan socon karin dumarka dadka jiran dadka tabarta daran caruurta kuwaasi aan xamili kareynin ayaa habeennimo la sii kaxayn kara gelinka dambe ama dadka xoog gale maya waa inay waagu meesha kuugu bariyo wabitaali aad muxuu ahaayay aad salaad subax ku tukato markii waaga la tukado waagu bariyo kadib salaada la tukado marka waxa weeyaan waa mash'arul haram meesha iyada fayda afadtum min arafatin fadhkuru allaha 'inda al-mash'ar al-haram markaad Arafa ka soo gadoontaan Allah ku xusa mash'arul haram ka agtiisa mash'arul haram kuwa Muzdalifa markaas ilaahay xuskiisa la bilaabaya salaada subax kadib oo duco tawxiid dhikri quraan akhris halkaas aad marka wadaysa طيب ila goorma ila inta ay qorraxdu ka soo dhawaanayso qorraxdu intayna soo bixin laakiin ay soo dhowdahay ayaad marka dhaqaaqaysaa xageedaadaysa mina sooma mina ku xigta waa mina oo maalintii 8aad aan marnay maalinkaana maxaa la joogaa waa maalinkee waa maalintii 10aad ilaa 9aad Carafaan joognay sooma maalinkii 10aad subaxdeedii baan Muzdalifa ka dhaqaaqnay minaan aadnay marka subaxda iyada ah shaqo badan baa taala marka maalinkaas 10aad waa maalinka yawm al-hajj al-akbar maalinka xajka ee ugu weyn waa maalinka 5 amal baa la qabanaya 5 shaqo ayaa la qabanaya shaqada koobaadi waxa weeyaan in buurta jamrada meesha la yiraahdo in la tuurto shaqada labaadna waxa weeyaan in xoolihii la qalo shaqada saddexaadna waa in la xiirto ama la gaabsado shaqada afraadna waa in kacbada la dawaafo dawaaful ifaada ama dawaaful hajj shaqada shanaadna waa labadii buurood ee Safiya Marwa dhexdooda la socdo shanta shaqa maalinka taal qaabkee loo sameeyay mid iyadana aan tafsiil u galin tuurida buurta la tuuranayo markaad Muzdalifa ka tagto waxaad sii qaadanaysaa 7 dhagax 7 dhagax baad sii qaadanaysaa 7 dhagax ama mina ka qaado ama Muzdalifa ka qaado dhagaxyaal yar ah dhagax weyn lama rabo mid aad u yarna lama rabo qiyaasta adiga galeeydo kale xabadaha galeeyda ama digirta yara kuuskuusan in ilaahano muxuu ahaa leeyahay ya maragwa digirtan yara roon ama galeeydo kale qiyaasteeda waa inuu dhagaxu leeyahay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam qadarkaas oo kale dhagaxaasad qaadan inaad dhaqdo waxba looma baahna dadka caamadii way dhaqaan way nadiifiyaan waxba loogama baahna 7 dhagax baad qaadan kadibna waad socon meesha dhagaxyaanta lagu tuuro ayaduna waa 3 meelood oo isku xigta markaad mina ka imaanayso Muzdalifa ka timaadood xagga mina ka soo gasho 3 meelood waxa kugu soo xigta mid la yiraahdo al-jamratu sughra mid u yar waxa ku xigta mid la yiraahdo al-jamra al-wusta oo ugu dhaxaysa waxa ugu dambayso dhanka Makka ugu xigta mid la yiraahdo al-jamra al-kubra ama jamratu al-aqaba
maalinkaas midda la tuuranayana waa taas ugu dambaysay dhanka maka ugu xigta labada kale waad iska soo dhaafaysaa toddobadaadii dhagax baad wadataa dhankeed ka maraysaa sida sunnada ah ee nabigu sallallahu alayhi wasallam inaad dhanka bidixda ka gasho waa ood xagga bidixda iska taagto makana ay markaa kaa xigsato dhanka bidix minana ay kaa xigsato dhanka midigta dhanka inaad ka gashaa fiican laakiin dhinacyahoo kale haddaad ka gashana iyadana waa gudaysaa maxay dadku dhanka kama wada geli karaan waa badan yihiin tayib marka waad istaagaysaa korkeedaad istaagaysaa dhagaxyaantii toddobada ahayd wadatay baad mid u tuuraysaa mid ayaad u tuuraysaa adiga oo takbiirsanaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar toddobada saas u tuuraysaa waxaan kala gadisnayn oo isku mid ah ama dabaqa ugu hooseeya ka tuuro ama ka ku xiga ka tuuro ama ka afraad ka tuuro ama ka shanaad ka tuuro dabaqya hadda laga dhisay si dadka loogu fududeeyo socodkaad socoteed Musdalifa ka timaadaba itijaah waxaad galaysaa aadan ka leexan karin si dadka loo qaybiyo marka ka aad ku hagaagtay meeshuu kugu hagaajiyo dabaqa ka tuur dhagaxu soo socdo hoos buu imaan doonaa laakiin adiga waxaad isku daydaa inaad dhagaxaaga ku hubsato godka meesha loogu talagalay iyo xawdka halka inuu ku dhaco kuubs bas markaad tuurato Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar oo ka dhamaado toddobadooda aad dhamayso ka ugu dambeeya markaad tuurato halkaasaad ku joojinaysaa labbayk Allahumma labbayk oo soo bilowday goorma markaad xajka soo xidhatay sooma maalinkii sideedaad xajka markaad xidhatay talbiyadaad soo bilowday waxay dhamaanaysaa dhagaxa ugu dambeeya markaad tuurato toddobada dhagax sida nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugan tayib taawamida ayadana yani intaasi aan kaga gudubna waa tuurashada waxaad tuuran kartaa marka gelinka hore ilaa duhurkii ilaa gelinka dambe ilaa habeenkii waa la tuuran karaa haddaad jaanis haydo waxba isdhibin waqtigu waa waasic khaasatan dadku way isdilaan oo xilliga hore nin walba isleeyahay ka faa'iideyso marka waa lagu dhintaa meelaha lagu dhintay kamid ahaan jirta inkastoo hadda la hagaajiyay marka waxba isdhibin ilaa habeenkii waa tuuran kartaa macna tayib inta markaad samayso waxa ku laaban oo ku xiga gawrici marba haddaad umro gudutay xajna ka dambaysiis ood mutamattic tahay waxa kugu waajibaya gawrac neef ari inaad gawracdo hadaadan kari karinna inaad 10 bari soonto 3 bari oo intaad xaramka joogto aad soomi iyo 7 bari oo markaad soo noqoto aad soomi doonto gurigaaga ku soomayso faman tamatta'a bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة طيب هديجي اللي جورعي أو أما كواجب كا أما ضدو حاجرة حولبا كيني وهدي كيني وحولب فرب بدن حرم كيني ولا جورعي أمر حل جاسنا اللي جورعي ومعناها سيدا في عن إن تكون جورع هذا ماشي اللي هو جورع من حركة ميل الله ماشي تكون جورع هذا واسكوميت ميل الله ماشي أدو جورع هذا الظروف تكون سامح هذا واسكوميت جورع عاس هذا waxa la sameeyaa xujaajtana u fudud marka tagtaba in aad wakiilato cid xoolaha iibisa oo ka qasha dawladdu waxay ugu tala gashay shirkaday siisay barnaamijka ugu tala gashay oo meelo u furan yihiin wadooyinka dhacyahooda oo lacagta loo dhiiba $100 miya ma ka badan tahay ma ka yarta qaaliban saasay noqotaa neefka ariga kuwaasaad isaga wareejinaysaa iyagana muhiimada qabanaya Soomaalidana waxaa jira sharikado yaryar iyo ashxaas laga yaabo kuwa idin wada ajinsiyada inay xataa ka mid yihiin ayaga hadii ay mas'uuliyadda u istaagayaan waa isaga wareejin kartaa si maalinka shaqadaaba aadan ugu baahanin maxaa yeelay cid baad ku wareejisay cidaas mas'uulka ayadana waa la sameyn karaa macna udxiyadaasi markaad qasho sida sunnada waxa weeyaan in la qalo xoolaha geela isagoo taagan ariga iyo lo'dana ayaga oo jiifa in la qala sunna waa la wadaagi karaa oo dadku iyagoo dhowr ah way ka wada qayb qaadan karaan 7 ruux neef geela waa isla qali karaan 7 ruux neef loo ah waa isla qali karaan ama ariga hal neef ayaa laga rabaa macna tayib waxa la qali karaa iyo xoolaha qalitaankoodu socon kartaa maalinta ciida ah ee maalintaasi tobnaad iyo 3 bari oo ka dambeys ayaamu tashriiq
كوي تبنات كواد قلي كرتا لبي تبنات كصدحي تبنات كواد قلي كرتا انت سبوا أيام ذبح بالنبي صلى الله عليه وسلم هدي جاء مركز سداسة سمين يسات كو قليسا حولها هدي هلب كادو أدقشوا قارنا واد عني قار واد صحيحا كرتا سيدو النبي بسمي صلى الله عليه وسلم قارنا واد صدقيسا كرتا قارنا واد صدقيسا سداسة سمين سمعنا فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر أي الله تبارك وتعالى تاسنا أيضا وي بنانت وحصو هاري markaad xoolihii hawshoodii dhinac iska mariso waxa ku soo haray inaad timaha xiirato sooma ilaan kii saddexaad way maalinka la qabanay timaha xiiran inaad xiirato fadli badan san soo sheeg haddaad gaabsatana way ku banaanta horaan soo sharaxnay tayib taasi ragga iska leh xiirashada ragga iska leh ama dumarku ayagu xiirasho ma leh gaabsi bay leeyihiin timahooda saasay u qabanayaan kadibna في الظهر أي وحير منقص كجوينية. على النبي جل وعلا صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. ضمر ككرك هذا ما حيرشه حيل تيمه هذا معناه كفرديان. تيمه هذا معناه كوين معناه كفرديان بكفرديان. إن الحير مال رمرك. لكن وجابين أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. حير الدنيا واسدة. وحخلد وضدك قاركوت سمي يلا يا شيخ محمود إنه كبر عروتشي. dadka qaarkood waxay sameeyaan meeshii gaabsada la yiraahdo ama xiira wax yar intay timaha ka qabtaan sida dumarka oo kale oo halkan laba xabo ka jaraya kadibna wuxuu leeyahay waan xiirta ama waan gaabsaday waa khalad walo madhabka shaafiiciga culimadoodu qaarkood ha qabaan laakiin sax ma ala sawaab ama timaha wada gaabi ama wada xiir laakiin wax yar baan qabanayaa sida dumarku oo kale shaqadaasi waa shaqo dumar waa shaqadii rag ma taasina waa qodob baahan la baraaruji maxaan soo sheegnay dhagixii la tuuranayay iyo xoolihii la qalayay iyo kaas dambeeyo oo axiirashadii qodobka afraadi waxa weeyaan inaad markaa kacbada tagto dawaafto dawaafkana waa tiir kamida tiirarka xajka tiir kamida tiirarka xajka hadaad ka tagto xajkaagu ma jirayo seed u dawaafaysaa waxaad u dawaafaysaa horta waxaan soo dhaafay maalinka tobnaad markaad tuurato jamrada acmaasha inteedii kalena ku laaban yihiin baad xalaaloobaysaa maxaa ka wada waa xalaaloobaysaa bimaana wixii xaraam ka noqday oo dhan markaad xarmatay xaraam ka noqday oo dhan baad dib kuugu xalaaloobaya markii laga reebo xaaskaaga iyo dumarku iyagu wali xaraam bay ka noqonayaan laakiin dharkaagii baad dib u xidhan cadarkii baad ismarin haddaad gabadh guursan rabto waad guursan waad codsan waad mehersan kartaa wixii aan soo sheegnay timaha waa dadi waxa kada lagu fasaxay laakiin dumarka wali waa lagu diiday waxaad imaanaysaa kacbada waa dawaafaysa dawaafku qaabkee weeye dawaafku waa kii hore sheegnay uun soomayna marka umradii meena soo sharxin umrada waxaan soo sharxnay qaabka loo dawaafayo laba qodob baan ku jirin meesha oo dawaafkii hore khaas ku ah maxayiin garabkii la banaynayay dawaafkan dambe ma laha rucleyntii la sameynayay iyo orodkiina ma laha saddexda hore orodkii la ordayna ma laha dawaafkani labadaasiba waxaan soo sheegnay waxay khaas ku yihiin dawaafka ugu horeeya markaad kacbada tagto kaasay khaas ku yihiin inta kale ma ay laha waa dawaafaysa dawaafka markaad dhamaysato labadii ragcadood baad tukanaysaa sooma waan soo sheegnay yadana labada ragcadood markaad tukato waa tagaysaa labadii buuro safiya marwo dhexdooda tagaysaa waad sacyinaysaa todobadii socod baad samaynaysaa iyadana soo sharaxnay inta markaad samayso camalkaagii xajka maalinkaas hawshii waa ku dhamaatay shanta camaleen sheegnay waa shantee jamradoo la tuurto xoolahoo la qalo timahoo la xiirto ama la gaabsado kacbadoo la tago la dawaafo sacyigii safiya marwo u dhaxeeyay shantaasi halka maalin wada dhacaya sida hadda aan isugu xijinay buu nabigu isugu xijiyay oo kala tartiibiyay sallallahu alayhi wasallam laakiin haddaad kala hormariso dhib male socodkaad socotoba haddaad dawaafka ka bilowdo oo buurta tuurashadii jamradaba soo dhaafto ama xiirashada aad ku bilowdo ama xoolo qalkaba aad ka bilowdo oo isdaba marmariso dhib male la xaraj
nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa lu bid daawiyad wuxuu rasuulka tanaan hormariyay tanaan dambeysay la xaraj wixii ku laaban uu samee ifcal wala xaraj saas daraadeed hadii la kala hormariyo dhib male intaas markaad samayso kadib oo saddexda arimood ku dhamaadaan maxaa laaban marka alqodba inoo laabnaa waxyaalihii ruux markuu xarmado xaaraanta ka noqday dhamaantood waxay u xalaaloobayaan baan nidhi markuu jamrada tuurto hal qodob mooyee oo ahaa dumarka Soomaa tayib goormuu xalaaloobayaa isagii markaad dawaafka samayso kadib markaad dawaafka samayso waxaad xalaaloobaysaa xalaaloobid buuxda markaad jamrada tuuratana waxaad xalaaloobaysaa xalaaloobid haaf ah oo qaybi wali laaban tahay qodobkaasi kaas weey acmaasha markaad saa u dhamaysato intaana taa ka bixin waxaa kaloo dhici karaysa haddii maalinka aad ka wada gaadhsiin kari weydo maalinkaas hal camal ama laba camal inay maalinkaa galaan ugu yaraan waa laga maarmaan kama dib dhici karaan tuurashada jamrada maalinkaa tobnaad kama dib dhici karto xiirashada ama gaabsiguna maalinkaa kama dib dhici karo laakiin xoolaha qalidoodu way dib dhici kartaa Soomaa saddex bariyo dambaaba la sii qali karaa Soomaynaa sheegay dawaafka hadduu kugu adkaado sidoo kale wuxuu u dib dhici karaa maalmaha dambe iyadana waa la dawaafi karaa dayib haddii dawaafku dib dhacayna maxaa la dib dhacay sacyigiina waa la dib dhacay soo saas ma laana waxa la rabaa in dawaafku uu ka hormaro sacyiga safiya marwo dhexdooda marka kuwaasi way dib dhici karaan laakiin maalinka tobnaad waa inaad ku taagsato ugu yaraan inaad jamradana tuurato timahana xiirato ama gaabsato kuwa kale laakiin way dib dhici karayaan sida macnaha in badan culimadu qabaan tayib inta markaad samayso waxa ku laaban maalinkii tobnaad shaqadiisi waa dhamaatay xajkaagii waxa ku laaban maalinka 11aad iyo maalinka 12aad oo laazim ah iyo maalinka 13aad oo khiyaar haysato maalmaha maxaa la qabanaya maalmaha mina lagu laabanaya habeenadeeda mina la baryayaa maalinta gelinkooda la iska joogayaa marka qorraxdu ay xilliga duhurka la gaaro qorraxdu zuusho oo kala barka ay ka dhaqaaqdo oo xilliga duhurka la joogo laga bilaabo ayaa marka waxa la tuuranayaa saddexdii meelood ee isku xigtay ee jamro Soomaynaa dhan waa saddex meelood oo midda yar midda dhexe iyo midda weyn baa la dhahaa maalinka 11aad duurka wixii ka dambeeya kama hormarin kartid duurka ka hor lama tuurto habeenka waad iska joogi waad iska bari gelinka hore waad iska joogi duurka marka la gaaro waad dhaqaaqaysaa waxaad qaadanaysaa ugu yaraan 21 dhagax maxaa laga rabaa middanoo 7 iyo middanoo 7 iyo middaasoo 7 meeqa way 21 dhagax baa laga rabaa waxoogaa ixtiyaad iyo taxadarna ku sii darso maxay dhici kartaa meesha cidhiidhiga markaad wax tuurtuuraysa inay qaar ka daataan Sooma marka qaar waxoogaa haday wax ka daataan in case iska sii qaado waxaad ka bilaabaysaa marka ama duur kadib tag ama casar kadib tag ama habeenkii tuuro qorraxdu marka dhacdo kadib ilaa waagu intuu ka bariyo waa la tuuran karaa waxa laga bilaabayaa marka midda u yar ee u xigta dhanka mina markaad masaajidka weyn ee mina ka timaado dhanka Musdalifiya masaajidka weyn ka timaado midda kuugu soo horeysa ayaa waxa la yiraahdaa midda ugu yar taasaad ka bilaabaysaa taa markaad ka bilowdo sidii baa waxaad uga maraysaa dhanka bidixda sida nabiga sallallahu alayhi wasallam sida sunnada waa inaad bidixda ka marto oo isku aadisood qaabisho kacbaduna ay ka qabato iyo Makka dhanka bidixda minana ay ka qabato iyo masaajidkeedii dhanka midigta dhankaasaad ka galaysaa sida sunnada toddobadii dhagax baad ku tuuraysaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar toddobada markaad ku dhamayso yaad ka soo baxaysaa wax yar baad dhinaca u durkaysaayo ciriirigaad ka dhex baxaysa xaqaad u yar durkaysaa qibladaad u jeedsanaysa meeshaasaad ku ducaysanaysa dad gacmaha taagto ilaahay waxaad rabtaad weydiisanaysa markaad ducadaada dhamaysato kadib waa tagi tii ku xigtay baad iyadana sidii oo kale dhankii intaad ka soo gasho baad toddobadeedii dhagaxyadana siinaysaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku dhamaynaysa markaad dhamayso baad durkaysaa haddana
meeshaas gadaal baad u yara bixi dhanka bidixda ah meeshaasaad haddana ku ducaysanaysaa intaad qiblada u jeesato waad ka soconaysaa markaad ducadaada dhammaysato tii u dambaysay ayaad tegaysaa iyadana sidoo kale aad ku samaynaysaa ogow marka ku baraarug taas u dambaysa waa tii aad tuuratay maalinkii tobnaad waana midda xagga maka ugu xigta ayadaa maalinkaa ugu dambaysoo la tuuran toddobadeedii dhagax baad ku tuuri markaad tuurta kadibna ayada agteeda lama istaago lagumana ducaysto faanta labada hore markaad tuurato agtoodaa lagu ducaystaa laakiin taa u dambaysa ee ugu weyn ee maka xaggeeda ugu xigta ayada markaa tuurataba waa laga dhaqaaqaa kuma ducaysanin agteeda nebigu sal alay wasalam maalinkaa intaasaad samayn habeenkaa 12aadku soo galay waad iska baryay haddana maalinka 12aad sidiioo kale gelinka dambe marka la gaadho duurka kadib ayaad sidiioo kale saddexdoodiiba sidiioo kalead ku samaynay midda ugu horraysa aad ka bilaabita ugu yar 7 dhagax baad ku tuuri agteedaad ku ducaysan tii ku xigtay baad imaanay u dhaxaysay 7deeda dhagax baad ku tuuri waad ka durki waad ku ducaysan ducada kadib waad tagi tii u dambaysay baad 7deeda ku tuuri markaas waad ka socon maalinkaad joogto waa maalinkee marka maalinkii 12aad gelinkiisa dambaad joogtaa 12aad gelinkiisa dambaad joogtaa maalinkaa markaad tuurashada dhammaysato laba mid marka haddaad rabto inaad degdegto iyo inaad rabto inaad daahdo haddaad rabto inaad degdegto intaa kadib aad dhaqaaqdo intayna qorraxdu kuu dhicin bax oo mina ka bax alaabtaadii waxaaga qaado u guur hoteelkaad deganayd qorraxdu iyana mina kuugu dhicin waad heli kartaa faman tacajala fii yawmayni falaa isma calayh labadaa beri ruuxi intuu tuurto degdega dembi ma leh waman ta'ahara falaa isma calayh ruuxii dib dhaca oo maalinka 13aad ku darsadana isagana dembi ma leh haddaad habeenkaa barido ood mina barido 13aadku soo galayo maalinka 13aad tuurashada haddana waa inaad samayso sidii baanad u tuuranaysaa saddexdooda haddaan soo sheegnayd u tuuran lahay horey ugu tuurateen soo sharaxnay baa u tuuranaysa maalinkaa 13aad haddaad dib dhacday ood tuurato hawshaadii waa dhammaatay marka haddaad degdegtayna ood maalinka 12aad ku dhammaysato tagtana hawshaadii waa dhammaatay soo ma acmaashaadii xajku waa ku idilta keliyata dadka xaajada leh danta leh ama xanuunsanaya ama shaqada haya مثلا masaalixda caamka ah ee waardiyayaasha ah xujayda u adeegaya inay habeenada baryaan waa laga cafinaa sida Abbaas ba nabigu uga cafiyay sallallahu alayhi wasallam habeenka meynada mina la joogo waa laga cafinaa tuurashada la tuuranayana waxay sameyn karaan labada bariba hal maalin bay wada tuuran karaan hal maalin bay isugu geyn karaan oo ay yaani wax weeyaan meesha 22 ay tuuran lahaayeen waxay tuuranayaan 42 ay tuuranayaan hal maalin kalena waa laga daynayaa dadkii xoolaha raaci jiray xoolaha la jiray waardiyaasha hadda lamida saalixda caamka dana caamka dadka haya dadka jirana xanuunsanaya dadka muxuu ahay culculus oo kale saasa loo sameyn karaya macna tayib intaasi marka acmaashi xajka kuugu idil waxa ku laaban gurigaaga iska tagi magaalada iska joogi shoppingkaaga iska samayso masaajidka iyo salaadiisa ku dadaal waa masaajidka nabiga sallallahu alayhi wasallam bal xaramka oo dhan masaajida ku yaala sida xooga badan salaadaad ku tukatay 10,000 waxaan dhihi lahaa 100,000 salaadeed 100,000 ajirkaad ka heli lahayd oo salaad meel kale aad ku tukatay ayaad ka helaysaa masaajidka xaramka weyn wuxuu fadli iyo ajir la dheer yahay masaajida kale xaramka ku yaala jamaacadiisa badan masaajidka mar walba jamaacadiisu badan tahayna ajirkiisu waa sii baday laakiin 100,000 ee ajirka masaajid kasto xaramka ku yaala waa laga helayaa sida xoog badan sharaajixa salaadaha ku dadaal masaajidka xaramka hore aad weyn hadaad tay karto waad iska joogaysaa markay noqoto inaad amba baxayso ayaad dawaafaysaa dawaafkana waa dawaafka sagootiga dawaafkaasi waa dawaafkii sagootiga nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahaa bixina ilaa aad cagta ugu dambaysa soo marisaan beedka markaad soo dawaafto waad amba baxaysaa marka inaad dib u seexato ama dib u sii joogto sax haddii inta dawaafka sagootiga samayso markaasi waxoogaa hawla ka laalaaban iyo yaani wax weey baabuurkii idinka dib dhaco wax yar aad sii joogtaan saacado duruuf darteed dib male marka laakiin waxa la diidan inta dawaafto haddaad sii joogto oo barido haddana dawaaful wadaac haddana waad ku soo celin sagootiga waad ku soo celin
dawaaf iscidaaca markaad samayso gurigaagii nabad allah kugu geeyo sidaasi ayaa marka acmaasha xajku ay noqonayaan kaliya waxaan doonayaa inaan ku daro inta hadda aan sharaxnay qaabkan u sharaxnay waa qaabka ugu fadli badan ee xajka loo guto oo ah umro madax banaan iyo xaj madax banaan oo tamattuc aan ku sheegnay tayib dadka qaar kood waxa laga yaabaa culimadaaba isku khilaafsane inuu barababa xaj kaliya inuu guto muxuu sameeynaa marka waxay ku kala kadisan yihiin kaliya dhowr qodob sidaan soo sheegnay baa la sameyn markaad xaj kaliya wadato laakiin xarmashada way ku kala gedisan yihiin markaad xarmanaysay tamattuca maxaa soo tiri tamattuca umra soo xidhay Soomaa labayka umra hadaad xaj kaliya rabto labayka xajjan baad dhihi Sooma labayka xajjan halka way ku kala gedisan yihiin waa mid labaad ruuxa xaj kaliya wata markuu kacbada yimaado wuu dawaafkiisana waxa la yiraahdaa dawaaful quduum mutamatticana dawaafkiisa waxa la yiraahdaa dawaaful umra marka soo timaado dawaafkiiba dawaafi waa kan soo sharaxnay labadii ragcadoodna waa tukan waa xaj kaliya hadaad wadato labada ragcadood marka tukato laba khiyaar baad leedahay inaad inta ku ekayso oo sacyiga aad sameynayso maalinka tobnaad aad u dib dhigato iyo inaad sacyiga labada burood dhexdooda aad iska sii hormariso dawaafkaaga hore markaad sameysaba aad sacyigana ku darto hadaad sidaas samayso maalinka tobnaad dawaafkiisa sacyigii ka dambayn lahaa adiga lagaama rabo sababtu maxay tahay laana sacyiga horeed samaysay markaad meesha timidba baa sacyigii xajkaaga Sooma waa qodobka labaadi waxa weeye maadaama xaj kaliya aad wadato ma xalaaloobaysid ilaa aad gaadho maalinka tobnaad jamradana aad tuurato ma xalaaloobaysid maxaan ka wadnaa bimaana markaad xidhatay wixii xaraam ka noqday ku xalaaloobi maayaan labada go'baad ku taagnaan xataa 20 bari 30 bari 2 bilood inta xajka ka laaban maalinka tobnaad inta laga gaadhayo ma xalaaloobaysid maxaa yeelay xaj baad xidhatay xajkiina waa taagan yahay kama xalaaloobaysid ayadana way ku kala gedisan yihiin tayib waxa kale ku kala gedisan yihiin saan tilmaanayba xajka iyo umradaadii hal sacyi bay yeelanayaan oo ka safiya marwa dhexdooda waxa kale ku kala gedisan yihiin ruuxa xajka kaliya wata oo xaj kaliya u guntan yahay xoolo uu gowrac laga ma rabo soonna warkiisa iska badaa ayadana way ku kala gedisan yihiin kana waa ruuxii xaj kaliya xajinay waxa yimid oo isagana aan ku daraya ruuxii xaj iyo umra isugu jirtay asaga waxay isku mid yihiin kan hadda soo sharaxnay ee xaj kaliya wati kaliya waxay ku kala gedisan yihiin labadoodu markuu soo xidhanayo bedelka kii hore uu yiri labayka xajjan kani wuxuu leeyahay labayka xajjan wa umra Sooma labayka xajjan wa umra kadibna meeshuu imaan dawaafku sameyn sacyiga haduu rabo ku dar haduu rabo dibdhigi acmaashi xajku gudagali xajka maalinka sideedaadna labadooda midna lagama rabo inay xaj xidhaan maalinka sideedaad yaa xajka xidhanaya waa mutamattic bas laakiin labadoodu xajkoodu waa u xidhnaaba ayagu way uun soconayaan way dhaqaaqayaan mina bay aadayaan laakiin xaj ay xidhaan loogama baahna xoolo ay qalaana qaarinka xajka iyo umradu isugu dhex jirto asaga xoolo uu qala laga rabaa oo waa mutamattic laakiin mufridka xajka kaliya wata asaga laga ma rabo ahkaamtaas marka ka dhaxaysa ay ku kala gedisan yihiin nooca ugu fadli badanna waa kii hore sharaxnay wax yar haduu waqtigu saamaxayo daqiiqad aan idin ku daro sidoo kale waxa ziyaarada Madiina la siyaaranayo ayada waa dhowr kelimo waa midda koobaad wadadu saacad ay fiirinayaan laakiin darsi culus bay dhiibeen adiga hadii lagu yiraahdo yaani wax 3 xalqo 4 xalqo u baana hal xalqa ku soo ururi saacadna lagu qabto soo kadeed ma wadadu marka ayaga sabiir raalli ahaada siyaarada waxaan dhihi lahaa orta Madiina in la siyaarto waa sunno masaajidka nabiga in la siyaartana waa sunno laakiin mid baan idinku baraarujinayaa siyaarada masaajidka nabiga iyo xajku iskuma qasbana
laazim ma aha ruuxii xajiyey inuu madiina tago laazim ma aha laakiin waa sunno ama xaj u tag ama si kala u tagay masaajidka nabiga inaad soo booqato taasi waxay meesha ka saaraysaa اعتقاد ay dadka qaar kood اعتقادsan yihiin oo dhahaya ruux ma ka yimid oo soo xajiyo iska soo noqday nabi maxamed waa gooyay ama waa caasi sax ma siyaaradu waa sunno labadooduna mutalaazimiin ma طيب markaad madiina tagayso madiina maxaad u tagaysaa qasadkaagu muxuu yahay niyadaadu maxay tahay ya ma qabriga nabiga u socota maya qabriga nabiga inta la niyeysto in loo safro waa khalad nabigaana sidaa yidhi qubuurta looma safro siyaaradeeda laakiin waa inay niyadaadi iyo qasadkaagu yahay waxaan ziyaaranayaa masaajidkii nabiga sooma masaajida loo safraa saddexda masjid baa ziyaaradooda loo safraa waa masjidkul xaraamka Makka ku yaala masaajidka nabiga Madiina ku yaala iyo masaajidka saddexaad ee masjidul aqsa oo baytul maqdis ku yaala ilaa gacanta yahuuda ka saaray saddexda masjid baa loo safraa marka waxaad u safraysaa niyad ah masaajidka nabiga siyaaro niyadaadu waa inay taa noqoto طيب meeshii baa tagtay masaajidkii haddaad tagto soo qabrigii nabiga kuma yaalo soo siyaaro markaa ujeedadaad u timid ma ahayn qabriga laakiin maxaad u timid masaajidkaad u timid laakiin meeshii haddaad timid soo siyaaro qabriga nabiga sallallahu alayhi wasallam see loo siyaartaa meeshaa tagaysaa masaajidka dhexdiisa ku yaala dhinac buu kaga yaalaa meeshaa tagaysaa qabrigaad ku jeedsanaysaa xaggiisa qiblada uu ka jeedaa waad ku jeedsanaysaa macnaa qibladaad gadaal marinaysaa waad ku jeedsanaysaa kadibna waad salaamaysaa assalaamu alayka ya rasuul allah assalaamu alayka ya aba bakrin assalaamu alayka ya umar bas ila nabiga iyo saddex labadiisii saaxiib baa meesha ku wada aasan sooma waad salaamaysaa bas meeshaas waad ka gudbaysaa meesha ilaahay ku baryimays ku tukan mays shaqo kale kuma taalo nabigii waad salaantay labadiisii saaxiib waad salaantay ka soco haddaad rabto inaad siyaarto qubuurta kale ee muslimiinta ee baqiic iyadana siyaaro oo salaan mushkila male laakiin cibaado laazima ma haddaad qubuur kale soo siyaarinayso magaalada ku taala sida yaani maqbaratu shuhada oo kale oo muxuu ahaay uxud agteeda soo siyaaro soo salaan dhib male sooma marka qaabkaas siyaaradana loo gudanayaa masaajidka nabiga la siyaaran kadibna nabiga waa la soo salaami salaan ka badanna ma sugna oo waa bidco walilasaf dadka caamada waxyaalaha sameeyeen maalin waxaan arkay anoo meesha maraya ayaa waxaan arkay wiil yar oo dhalinyaro ah oo intuu qiblada ka jeesaday qabriga u jeesaday tukanaya oo qibla ahaan ka dhiganaya marka waa halis acmaashi marka ziyaaro iyo xaj iyo umro sidaas weeye xajkiina Allah aqbalo hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi